Sidee kor loogu qaadaa caafimaadkaaga? 1. Cab biyo badan maalintii, tusaale ahaan cab maalintii 3 ilaa 4 litir oo biyo ah. Ogow, biyuhu waxay saaraan sunta jidhka ku jirta, iyagoo heerkulka jidhkana hoos u dhigaya. Ogow, biyuhu maqaarkaaga way nadiifinayaan, waxay ka dhigayaan qof tamar uu ku shaqeeyo leh. Ogow, biyo kulul oo cabto, sida shaaha, waxay kaa caawinayaan in nidaamka dheefshiidka jidhka uu aad u shaqeeyo. 2. Quraacda subaxii ha ka tagin. Cunidda cunto fudud subaxii sida beedka ama furuugtiga ama caanaha waxay kaa caawinaysaa helidda borotiin kugu filan. 3. Ha ilaawin qadada inaad cunto shay hilib ah ama kalluun si aad u hesho in jidhkaaga si fiican ugu shaqeeyo. Ogsoonow inaad iska ilaaliso shay leh fat ama waxa loo yaqaan subagga sida baruuraha, hilibka badan. 4. Iska ilaali waxyaabaha macaanka leh sida nacnaca, shukulaatada, sonkorta iyo cabitaanka aysiidha leh sida Coca-Cola ama Pepsi ama Fanta. Ogsoonow, jidhkeena waxa uu doonayaa carbohydrate. Si loo helo taas, waa inaad ka fogaataa macaanka badan, taas beddelkeeda cun qudradaha. 5. La kulan dhakhtar yaqaana isku dheelitirka cuntada. Ogsoonow, waxaa loo baahan yahay calcium, vitamin D iyo vitamin B12. 6. Soco oo lugee maalin walba 20 daqiiqo si aad jidhka uga saarto subagga wadnaha waxyeello. Ogsoonow maalin walba waad lugayso 20 daqiiqo, waxa kor u qaadmaya difaaca jidhkaaga. Ogsoonow inaad seexato habeen walba. Ogsoonow sidoo kale inaad ordo 8 kiiloomitir maalin walba iyo inaad jiimka aado si murqaha aad u ilaalisid aaduna ilaalisid caajiska halista badan sababa. Ogsoonow inaad ka haysato baaskeel. Baaskeelka waxa uu furfuraa muruqyada bawdyaha. Ha ilaawin markaad jimicsanayso inaad caagad biyo ah sii qaadato. Jooji jimicsiga 30 daqiiqo kadib oo naso si aad hoos ugu dhigtid cadaadiska dhiigga iyo wadna garaaca badan. Maamul stresska naftaada soo wajaha. Isku day inaad kaligaa u baxdo dibadda meel cagaaran ama cidlo ah oo qof joogin maalin walba ilaa 30 daqiiqo. Markaad dareento stress ama cadaadis nafsi ah, neefso, quraankana akhriso. Si xikmad leh u dooro qofka kula saaxiibka ah. Ogsoonow saaxiibka wanaagsan inuu naftaada farxaddeeda qayb ka yahay. Ka fogow saaxiibka sunta ah, tusaale ahaan saaxiibka balwadda leh, saaxiibka aan tukan salaada, ama saaxiibka xogtaada la wadaaga meelo kale. 10. Ka fogow waxyaabaha nafta khatarta ku ah sida daroogada noocyadeeda kala duwan ama cudurrada laga kala qaado sida HIV ama beer xanuunka. Jooji isticmaalka daroogooyinka si dhaqso ah, lana kulan dhakhtar. Sigaarka ka fogow intaad ka fogaan karto. Xanuunada la kala qaado ka fogow, kana fikir naftaada. Habeenkii si wanaagsan u seexo. Ogsoonow markaad seexato jidhkaaga waxa uu soo saaraa unugyo la dagaalama infekshanka, kaarka jidhka kugu haya iyo stresska iyo xanuunada kale. Markaad si fiican u seexatid, tusaale ahaan 8 ama 9 saacadood oo xidhiidh ah, waxaad ahaanaysaa qof firfircoon maalinka oo dhan. 12. Maydh farahaaga mar walba. Ogsoonow xanuunada sida caburka iyo hargabka ama qufaca iyo fayrasyada kale ayaa kuu soo gudbaya marka aad wax cuntid adoon farahaaga maydhin. Ku dadaal inaad farahaaga mar walba maydho.